wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo ay weheliyaan saraakiil sare oo ka tirsan wasaaraddaasi ayaa maanta soo gaaray magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaana ujeedka wafdigani u daaranaa wadada Ceerigaabo isla markaasina ay hay'adaha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil uga qayb qaadan lahaayeen wadadaasi Ceerigaabo wasiirka ayaana la kulmay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil waasi oo ka wada hadlayay sidii lacagtaasi ay uga qayb qaadan lahaayeen madaxweynaha Soomaaliland digreetada ku soo bixiyay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo halkaas ugu horeyn ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii u yimi gobolka gaar ahaan degmada Berbera caasimada Berbera waxa weeye wadada Ceerigaabo oo gabagaba ah lacagihii ku baaqday goobihii ku qornaa sida dowladda hoose kaada biyaha haamaha iyo dhammaan cid kasta oo digreetada madaxweynaha saameynaysa inuu hubiyo in lacagtii wareejiyeen iyo inay degdeg u wareejiyaan safarkaas uu yimi aad ugu mahadsan yahay waxaan ku faraxsanahay shaqada qaranka u hayo isbedel badan oo xooggan uu ka muuqdo intuu wasiirku ahaa waa hawsha horeyba looga dhawaajiyay socoteen ee dabagalka ahayd lacagtii loo jarayay jidka Ceerigaabo Burco isku xidhayay oo hay'adihii bixiyay iyo kuwa aan bixinba la eegay kuwa bixiyeen inay bixiyeen loogu mahad celinayay kuwa aan bixinin la rabay inay xisaab ahaan bilaabaan ay bixiyaan aad iyo aad baan maxaan ku leeyahay hawshada iyo maxaan ku leeyahay mas'uuliyadda qarankaada aysan wasiiraan maxaan ku leeyahay kugu wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa ku booriyay guud ahaan gobolka Saaxil iyo hay'adaha laamaha dawladda inay xil iska saaraan lacagtaasi loogu talagalay wadada Ceerigaabo mashruuca wadada Ceerigaabo oo ahaa kalfaradii oo halkan yaalay hawshoodii fulintoodii baan u nimid insha Allah oo anaga soconnaa runtiina waan ku faraxsanahay inaan maanta aan halkan ugu mahad celiyo gudoomiyaha iyo meeyarka sida wanaagsan iyo samaanta ay noo qaabileen isla markaana waxyaabaha gobolka uga baahnay guud ahaan iyo gaar ahaan degmadaba ay noogala shaqeeyeen waana xilliye waajibaad in wada saaran dhamaanteedba horumar kasta oo la sameeyaa kulli Berbera ka muuqanaya imika waxaan lahaa waddo kasta la bilaabaa waxa ku dhamaatay Berbera marka ay reer Berbera qayb ka noqdaan oo ay ka shaqeeyaan haday noqoto tacab iyo dhaqaalaha runtii way leeyihiin Berbera iyo maamulka Berbera markii koobaad ay wax ku daraan maaha wadada inta ugu badan ee daamur la saaray dawladda hoose ee Berbera qalabkayga saaray marka horeba imika tiiman ka rajeynayna insha Allah haddii Allah ka dhigo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay si fiican hawsha noogu socotaa wadooyinkuna sidooda waxay u baahan yihiin dayactir joogto ah insha Allah tiiman baa la sameyn doonaa waxa kale oo jecelahay inaan halkan aan ka sheego in xafiiskii gobolka ee hay'adda horumarinta wadooyinka insha Allah dhaqso loo dhisi doono oo halkan xarun ku yeelan doonto gurmadka Hargeysa ugu imanaya inuu jiri doono tiim halkan ka shaqeeya oo si joogto ah xiriir u la yeesha wadooyinka waxa kale oo reer Berbera jecelahay inaan labadaas sanadood ay ku yarayd xagga hay'adda laakiin sanadkan 2020 waxaan rajeynaynaa in bariishadii shanta bariish iyo wadada isku xiri doonta Berbera iyo Burco in la bilaabi doono oo maanta tiim baa jooga ay soo direen wasaaraddu soo dirtay lacagtaana waxa laga maalgelin doonaa sanduuqa horumarinta Soomaaliland runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV